qaramada midoobay ayaa ka digaysa masiibo weyn oo ka dhalan karta shidaal ku daata badda cas oo ah maranbiyood aad muhiim ugu ah isku socodka dunida oo dhan haddii aan xal degdega loo helin shidaalka ku kaydsan markab nooca shidaalka qaada ah oo xumaaday kaas oo muddo dheer taagan meel u dhow xeebaha dalka Yemen markabka lagu magacaabo FSO oo uu ku kaydsan yahay shidaal ka badan ilaa iyo 1 milyan oo foosto ayaa taagan meel u dhow xeebaha dalka Yemen markabkan ayaa ah mid aad u duugoobay waxaana la joojiyay shaqadii dayactirka ahaa ee laga waday kadib markii uu bilowday dagaalkii sokeeye ee dalka Yemen sanadii 2015 qaramada midoobay ayaa hore u sheegtay in kharashka ku baxay hawlgalka laga hortagayo inuu daato shidaalka ku kaydsan markabkaas inuu gaarayo ilaa $20 bilyan kaas oo soconaya muddo bila ah qaramada midoobay ayaa haatan sheegaysa in qaadan bixiyaashu ay ku yabooheen ilaa iyo $66 milyan taasoo weli la sugayo in la helo ilaa iyo $14 milyan oo ka dhiman kharashka la sheegay inuu ku baxayo hawlgalka badbaadada markabkan FSO saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay inaan hawlgalka la bilaabi karin ilaa la soo dhammaystiro lacagtaas iyagoo dhinaca kale walaac ka muujiyay in xitaa lacagta la ballan qaaday inaan qaybo badan oo ka mid ah aan weli la soo gaarsiinin bangiyadii ay ahayd in lacagtaas lagu shubo Russell Giki oo ah sarkaal u qaabilsan qaramada midoobay dhinaca isgaarsiinta ayaa sheegay inay heleen oo kaliya ilaa iyo 10 milyan oo ka mid ah lacagta la ballan qaaday Russell ayaa sheegay in xaaladda markabka FSO inay tahay mid halisa waxaana suuragal ayuu yiri in markabku uu shidaalka daadiyo ama uu qarxo xilli kasta taasoo keenaysa masiibo aad u weyn oo dhinaca deegaanka ah Russell ayaa xaaladda markabkan ku micneeyay inay tahay bam dhex taagan badda oo sugaya oo kaliya inuu qarxo qaramada midoobay ayaa sheegtay in haddii uu daato shidaalka markabka ku jira inay keenayso khasaare ka badan ilaa iyo $20 bilyan oo ah nadiifinta oo kaliya waxay sidoo kale arrintaasi halis gelinaysaa ilaa iyo 200 kun oo qof oo ku tiirsan kalluumaysiga biyaha badda cas dhinaca kalena madaxweynaha Belarusia Alexander Lukashenko ayaa diiday inuu meesha ka saaro ama uu beeniyo suurtagalnimada in hubka nuclearka la geynayo dalkiisa isagoo la hadlayay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Belta Lukashenko waxa uu diiday inuu meesha ka saaro wararka mala-awaalka iyo kuwa sida kale ee been abuurka ay warbaahinta reer galbeedku ku warinayaan in Ruushku uu doonayo inuu dhigo kumacyada hubka nuclearka dalka Belarusia oo daris la ah dalalka NATO gaar ahaan dalka Poland oo ay yaalaan raadarada iyo nidaamyada difaaca gaashaanbuurta NATO taas oo dhib weyn keenaysa iyo halis ammaan iyo isku dhac labadan quwadood oo hadda isku haya arrimaha Ukraine